xubnay ugu horeeyay baarlamaanka ayaa soo baxay marka muddaxileedkii baarlamaanka iyo madaxweynaha oo labada bilood ahayd iyo inta laga gaarayo doorashadii oo bishii October August iyo October waa 2 bilood inta u dhaxaysay in baarlamaankaas uu sii jiro muddadaas yar oo koob taas ayay ahayd 2016 doorashadeedii lagu aaday midda hadda lagu ansixiyay oo base-ka laga dhigtay oo heshiiska markii lagu qorayo lagu qorana taas ay ahayd muddadaas kooban oo bil iyo 2 iyo 3 hadday u badato 4 iyo 5 waxay rabtaa ha noqotee in firaaqaasi uusan u imaanin loo sii kutubiyo hawlihii golayaasha sharci dejintu ay hayeen oo aysan firaaq meeshaas uusan ka imaan way ahayd waxa la aaday marka waxa anaga aan aadaynay oo aan sheegaynay oo la tilmaamay taas ay ahayd nin jeclaanshiis iyo cabaashiis midna ma aan aniga waxa aan ka hadlay waxa sharcigu tilmaamayo waa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday maalinkii 7 February sidii madaxweynihii ka horeeyay oo sameeyay 10 September la doortay 9 waraaqta soo saaray wuxuu yiri laga bilaabo xilligan muddaxileedkaygu waa dhamaaday doorasho la aaday inta doorashadaas ay ka imaanayda shaqa maalmaadka ahayd xukuumadda inay qabato iyadoo dastuurka uu tilmaamo qodobka 103 ha sii wadaan anigana murashaxana campaign-kaygan ka shaqeynaa farmaajo intaas oo kale aan ka rabin inuu meel inta fariistay yiraahdo campaign-kaygan ka shaqeynaa xukuumadda xilgaarsiinta qodobka 103 sidaas oo kale waraaqta uu soo saaray inuu yiraahdo loo hogaansamo shaqadiina ayuu ku sii meelsamay laakiin inuu maanta dhex taagan yahay doorashadii oo caqabada abuura oo dowlad goboleedyadii kala qaybinayo oo baarlamaanka inta ku soo laabto baarlamaan waqtigiisu dhamaaday oo leeyahay muddo kordhin ana ii samay adiguna samayso wax sharciga waafaqsan maan anaga marka waxa heshiiska lagu yahay ee shuruucda ay tilmaan walaalow inaan u hoggaansanaan rabnaa wixii shuruucdu aysan tilmaamin iyo duruufaha timaadana in la isqanciyo dadka siyaasiyiinta inta wada fariistaan ay isku sheegaan u baahan ما سنت حلمان وحنسيننا فاطمة كدمنا الليبان أنا ما سنتها